kumanaan Soomaali banaanbaxyaal ah ayaa iskugu soo baxay wadooyinka magaalada Nairobi salaadii Jimcaha kadib. Banaanbaxan ayaa ahaa mid aad u ballaaran oo ay ka qayb qaadanayeen kumanaan dadweyne oo iskugu jiray dhalinyaro, haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa lagu soo horjeeday xilka qaadista ra'iisul wasaare Farmaajo oo lagu baaqay in xilku iska casilo muddo 3 cishood gudahood ah. dadka dhigay banaanbaxa ayaa ku dhawaaqay ereyo ay ku taageersan yihiin ra'iisul wasaare Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xukuumaddiisa waxayna socod dheer ku soo mareen qaybo badan oo kamid ah xaafadaha magaalada Nairobi. dadweynaha banaanbaxayaasha ah ayaa watay boorar ay ku qornaayeen halkudhigyo ay ku taageerayeen ra'iisul wasaare Farmaajo iyo sawir ay ugu soo horjeedeen u qaabilsanaha arrimaha Soomaaliya qaramada midoobay Masar Mahiga. maraan mikrofoonka la dhex qaadnay dadweynaha dabadbaxayaasha ah ayaa waxa ay dareenkooda ku cabireen sida tan. Soomaaliyeed oo maanta isu soo banaanbaxay oo isli horta boqolkiiba boqol waa mahadsan yihiin danaha ayagu ay leeyihiin bayna garanayaan u soo banaanbaxeen iyo Soomaalida dhibta haysata waxaan idin sheegayaa Soomaali baa leh maalintii la yiraahdo biyaha la cababa hadii biyaha la daadinayo dhawaankii iyo hooyooyinkii iyo adduunyada ay maanta qarax tahay nolosha aanu ku noolahay waa darbi iyo dugaago caruurta habeenkii naga gurta ilmuhu habeenkii ruuga naga qaata ilmaha darbi baanu jiifnaa waa nin qaxa iyo nin dhinta iyo nin dhufays loo galo laga eriyo dalkiisii dhalintu waxay doonaysaa inay nasato iyadoo ay tahay waxaanu doonaynaa annagu maanta u dhimanaynaa oo u soo banaan baxnay inta yar ee noo iftay ee 6 bilood laga caruurtii banaankii way ka weetay hooyooyinkii way hoydeen Farmaajo 6 bilood buu hayaa 6 bilood waxba qarin mayno waxba qarsan mayno waxba sheegi mayno 6 bilood adduunkii la nasashada loo diidan yahay warguba la yiri adduunku hadduusan gubanayn nabadu kama imanaysaa la yiri waa in la gubaa la yiri waa in Farmaajo xaqiisa la tusaa bandhignay labada nin ee caqabada ku ah nabadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa dadka Kenya oo nugula nool yahay in aan raali ka ahay ninkan ay magangalyada hayaan waxa weeye in ay naga bixiyaan wadanka naga ka bixiyaan baan codsanaynaa dadka dawladda Kenya ka codsanaynaa Sheekh Shariif waxaan leenahay madaxweynaha dalka naga waa ku jecelahay waa ku soo batigareynay 6 bilood oo ahayd maxaan ku raadayay maxkamadaha iyo hadda arinta ka dhacay waa ku soo batigareynay waxaan ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed in ay rajaysiiso oo aad ka bixiso lacag qaateen lacagna qaadane rabitaanka ma muujinayna Soomaali baan nahay kacdoonka dadka aad u galay iyo dadku inay baraarugeen waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaa macnaha inaan taageerno Farmaajo iyo wixii xukuumaddiisa asagoo ay tahay ummaddu in aysan ogolaanin in madaxa looga taagnaado ummaddu waqtiga horeeto way jeeftay laakiin hadda way barto waxaan diyaarnahay xaqana inaan dhacsano maanta baarlamaanka Soomaaliyeed baan fariin u jeedinayaa fariintaan u jeedinayaa waxa waaye waa inay sumcad naga sameystaan baarlamaanku waa inay maanta sumcad naga sameystaan waxa talada Soomaaliya ayagay maanta u taala ayagaan ka sugaynaa waan fiirinaynaa waan la xisaabtamaynaa waxaan nahay mustaqbalka iyo baarlamaanka berri waxaan rabnaa in macna waxa weeye aqoonsiga iyaga iyo calanka iyaga naloo xorbaneeyo oo qurbaana dilay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waa inay u midowdo dantooda iyo maslaxadooda ay raacaan wuxuu yiri Sheekh Shariif lacag baa la bixiyay lacagta ayaa la siiyay lacagna lama siinin wadannimada iyo dadnimada nadan kula soo bannaanbaxnay kuna muujinaynaa qabiil waana daashada inuu la daayaan rabnaa annagu waa dhiman ummadda Soomaaliyeed haddaan nahay 20 sano ku jirnaa qabiil iyo dhibaato inaan ka gudubnaa rabnaa salaamu calaykum Abdul Abd oo Tunisia joogay Libiya oo Qadaafi joogay Mabuuta Seko oo Kongo joogay inta soo dhan rabitaanka shacabkoodii ayahooday ka jeesteen hadaad ayaheena iyo ummadmadeena rabtid wadada xukuumadda iyo ra'iisul wasaare Farmaajo qaad Soomaalinimo u shaqee hadaadan Soomaalinimo rabin aad Mahiga iyo Shariif la dabtahay oo aad doonayso Soomaali inay boqol ku dhacdana bar acdoonkeena ma joojin kartid annagu qabiil ma niyan maxay Soomaali kuwa xaq jooga iyo kuwa meel walba jooga amar baan imaanaynaa banaanbaxani aadka u ballaaran ee lagu taageerayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lagu soo horjeeday casirada ra'iisul wasaaraha ayaa waxa ay noqonaysaa tii labaad ee nooceeda oo kala ah ee ka dhaca magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya. Faisal Aseer, Somali Channel, Nairobi.